iyo waxay imanaysa dhibaato waxaan leeyahay gobolkaad ka soo jeeda awdal ayaa ugu booga badan ugu dhib badan madaxweynuhu intaanu gobolka u magacaabin 6 goobood inay xalileeyahay 6 goobood ee la isku haystaan doorashadu ka dhacayn waana huwa qaska ka imanaya xadeynta gobolka ya markuu madaxweynuhu yado ilaa dila ayaa gobolka ah waa la wada degaa gobolka Gabiley waa la wada degaa gobol qoys quli dego maaha waxaan leeyahay sidaan u baarigayno anigu Gabiley u baarigayno in caynaba loo baarigaa waa in loo baarigaa meesha la yiraahdo Baligubadle waa in Oodweyne loo baarigaa waa in loo baarigaa meesha la yiraahdo Salel loo baarigaa si miisaaman xildhibaanada waxaan leeyahay madaxweynuhu wuu reeriyay dalkana de maanta wuxuu baahan yahay in kastaanan aaminsanayn madaxweynuhu mar shalayba marka goboladan wax u kordhiseen iyo degmooyinkan madaxweynuhu is hortaagay ana wax leeyahay idinku is hortaagina laakiin cadaalad baa la idinka rabaa cadaaladda sugaysaan hadii kale waxay noqonaysaa dalka arrinkaasi dhibaato weyn buu ku soo kordhinaya waa maqlayseen reer Baligubadle say hadlayeen ismadoodii lama dhayalsan karo hadii la yaado hadii la leeyahay bariyahanba way hadlayeen ma noqonayse maanta waa naaro qaadadii u dambeysay war Baligubadle ayaa laga reebin meesha caynabana annaga xildhibaanada iyadu mana codaynayaan cidna u shaqeyn maayaan gacantaydaanu baryaynaa madaxweynuhu de shalayba sharci darru sameeyay markuu miisaaniyadii soo laalay oo dalku wali miisaaniyad sharci lahayn hadduu doonayo sharci la'aan ha ku ansixiyo laakiin waxaan leeyahay gobolada Gabiley la miisaanka ee la midka ya waa in la ansixiyaa waxa weeyaan waan garan karaynaa waxa loo doonayo de xildhibaanada lagu doonayaa sanadka dambe xildhibaanada lagu doorto ya de nin waliba saamiga ka maqan dhaqaale ugu soo kordhayo gobolka ugu soo kordhayo degmada darajadu kordhayo dhaqaale ugu soo kordhaya waxa weeyaan halkan dhaqaale kaba bay leeyihiin oo kabto oo tog wajaale dhaqaale laxaad ka soo gala caynaba waa laga xidhay wadadii qurahayd ee customka ugu soo xakran burca xaniban xoolihiiba waxba loo xisaabin anigu waxaan leeyahay xildhibaanadu dalka ha badbaadiyeen inta aan ka hadlayaa inta weeye waanu baarigayaa qoladaas gobolka